habeen wanaagsan ku soo dhawaada wararkeena habeenimo qodobada aan idinkugu hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu ku dhawaaqo inuu yahay musharax madaxweyne dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba Axmed Madoobe ma laga yaabaa inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya 2026 warbixin baan idinkaga haynaa. Puntland saaka waxay bilowday wajigii labaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish. dhul badan ayay saaki ciidamadu isku fidiyeen khasaare dhimashiya dhaawac leh ayaa ciidamadana soo gaaray. Warbixin baan idinkaga hayaa. waxaan kaloo aan idin hayaa warbixin kale oo ku saabsan ciidanka Jubbaland ayaa dib u qabsaday xaruntii degmada Baardheere oo ay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya dhawaan la wareegeen. laakiin Jubbaland ciidamadii dowladda federaalka ayay mar kale halkaas ka qabsatay. warbixinadaas iyo kuwa kale ayaad uga bogan doontaa barnaamijkeena. soo dhawaada muuqaalkan la garay ee channelkeena subscribe saara. haddii aan ku bilaabo xogaheena, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo muddo 2 toddobaad ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya ayaa waxa ay mas'uuliyiin uu halkaasi kula kulmay qaarkood ay sheegeen ama ay xaqiijiyeen in sanadka soo socda ee 2026 doorashada dhici doonta ee Soomaaliya uu u tartami doono xilka madaxweynaha Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa saaxiibadiisa Nairobi ku sugan. markuu tagay Axmed Madoobe wuxuu ugu sheekeeyay ama uu ku yiri iga warhaya ama la socda inaan ahay musharax madaxweyne dowladda federaalka Soomaaliya doorashada soo socota ee 2026. Axmed Madoobe ayaa maalmo ka hor ku soo laabtay Kismaayo halkaas oo markaasi ay ku soo dhaweeyeen xildhibaanada iyo mas'uuliyiin kale iyo sidoo kale ganacsato isagoona Nairobi intuu uu joogay la soo kulmay xildhibaano iyo siyaasiyiin waaweyn oo Soomaaliyeed iyo sidoo kale dad kale oo ganacsatada ay ka mid yihiin ayuu Nairobi intuu uu joogay asna halkaasi kala soo kulmay, kuwaas oo xogtaani siyaabo kala duwan looga helay ku saabsan inuu yahay musharax madaxweyne Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa in ka badan 10 sano haysta xilka madaxweynaha ee Jubbaland. kursigaas isaga ayaa u xiran yahay Jubbaland muddo 10 sano ka badan ayuu ku fadhiyaa. dhowr doorasho oo dhacday ayuu noqday ninka koobaad oo ku soo laabtay. madaxweynayaashii kala duwanaa ee dowladda federaalka soo maray ilaa iyo Sheekh Shariif iyo Xasan iyo Farmaajo mar kale Xasan dhamaantoodba marar kala duwan waa isku dayeen inay Axmed Madoobe dhaafiyaan maamulka Jubbaland, balse ayagu ma guuleysan ee isaga guuleystay. inkastoo Axmed Madoobe yahay dagaalyahan, haddana waxaa lagu qiimeyn doonaa baa leeyahay waxa uu ka soo qabtay Jubbaland haddii uu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha ee Soomaaliya. inkastoo oo doorashada Soomaaliya marka loo eego doorashooyinka kale ee dunida ka dhacay ee shacabku wax doortaan aysan isku mid ahayn, oo la leeyahay madaxweynayaasha laguma doorto ama qofka laguma dooranhayo waxqabadkiisa, wuxuu soo qabtay jacaylkiisa, wanaagiisa, laakiin siyaabo kala duwan oo dadka qaybtooda ay ku tilmaamaan inay musuqmaasuq ka marnayn ayaa lagu soo doortaa oo xildhibaano iyo dowladaha shayaar markaasi dhaqaale ku bixiya, xildhibaanada lacag qaata, arrimo noocaas oo kale baa la sheegaa. Axmed Madoobe iyo guud ahaanba Jubbaland hadda waxa saaran cunaqabatayn, waxaana halkaasi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wadaa kala furfur ay ku wada dowladda maamul goboleedka Jubbaland, iyadoo dowladda federaalku ay u suurta gashay in gobolkaasi gado meelo ay kala wareegto, laakiin qaybtood aad gadaal barnaamijkan uga maqli doontiin in mar kale lagala soo wareegayo. wasiirka amniga ee Jubbaland Yusuf Dhuumaal oo la hadlay VOA-da ayaa si cad u sheegay in Jubbaland ay khalkhal amni gashay iyo mid dhaqaale oo ka dhashay cunaqabatayn iyo sidoo kale tillaabooyin military, isla markaana ay diyaar u tahay inay wada hadal la gasho dowladda federaalka Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa horey u sheegay inuu diyaar u yahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay wada hadal la furto, balse dowladda federaalka ayaan weli dheg jalq u siin kuna qaaday dagaal toos ah, inkastoo meelihii ugu muhiimsanaa uu Axmed Madoobe uga badiyay ama uga guuleystay dowladda federaalka Soomaaliya. haddii Axmed Madoobe uu tartamo xilka madaxweynaha Soomaaliya, ma noqon doonaa madaxweynihii maamul goboleed ee markaasi ugu horeeyay, waxaana markaasi ugu horeeyay Siciidani oo natiijo fiican ka gaaray tartankii ugu dambeeyay ee Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo baxay. xilligaas oo Siciidani uu soo sharaxay xilka madaxweynaha Soomaaliya. mar kale waxaa la leeyahay Siciidani qudhiisu waa musharax madaxweyne, laakiin Siciidani wuxuu xilligii uu musharax ahaa doorashadii hore
ama doorashadii dhaweyto uu ku xisaabtamayay xildhibaanada Puntland iyo kuwa Jubbaland laakiin hadda waxaa muuqanaysa haddii Axmed Madoobe uu soo sharaxo in la qaybsaday oo xildhibaanadiisa Axmed Madoobe uu ku xisaabtamayo Siciidna uu kuwiisa ku xisaabtamayo laakiin ma ku shuraakoobi doonaan in ay markaas kii haba codad bata oo kan kale ugu shubo iyo arrimahaas oo dhan laakiin waxyaabaha la aaminsan yahay waxa ka mid ah in labadooduba ay ku midaysan yihiin dagaal ka dhana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay doonayaan inay kursiga dhaafiyaan haddii ayagu ay guuleysan waayaan nin kale ay soo saartaan sida Soomaaliya looga bartay inta badan mawduucaasna halkaas hadaan uga soo laabano Puntlandna haddii aan eegno wararkeeda ugu dambeeyay ee dagaaladii maanta ka dhacay wajigii labaad ee dagaalka oo bilaabmay iyo xogo kale oo aan dagaalkaasi idinkaga hayno khasaaraha maanta dhashay iyo macluumaad kale waantay Puntland waxay maanta bilowday waliba saakay oogii waa bari dagaal ka dhana Daacish waa wajigii labaad ee dagaalka ayaa saaka bilowday intii la socotay Turma Saale ayuu ku ekaa wajiga koowaad ee dagaalka halkii ayaa laga sii ambaqaaday kii labaad oo ciidamada difaaca Puntland ayaa saaka howlgallo xooggan oo dhowr jiha waxay ku qaadeen deegaano ku teedsan toga lagu magacaabo Jacayl oo ay ku dhuumaanaysanayso kooxda go'doonsan ee IS cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa saaka jihooyin kala duwan kaga dhaqaaqay deegaanka dhaca togaasi Jacayl ee buuraha Caalmiskaad oo laga soo sheegay in ka badan 6 talis ay qabsadeen markaas ama laga qabsaday maleeshiyaadka Daacish haddana wali firxadkooda baa leeyahay ciidamada ayaa baacsanaya howlgalkan oo lagu tilmaamay mid ka xoogan kana diyaarsan wajigii koobaad ee dagaalka buraleyda Caalmiskaad ee ku ekaa Turma Saale ayaa lagu soo waramayaa in maanta guulo muhiim ah la xaqiijiyay oo ay ciidamadu gaareen kadib markii ilaa 6 talis laga qabsaday kooxda Daacish dhinaca kale ilaa 5 askari oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa ku dhaawacmay howlgalka maantay kuwaas oo qaarkood la eegtay qarax miino balse dawladdu wali faahfaahin kama aysan bixin khasaaraha dagaalka ee markaas dagaalka wali socda dhinaca kale waxa dhaawac fudud uu soo gaaray taliyihii ku-xigeenkii ciidanka daraawiishta ee Puntland taliye Ilig kaas oo markaasi isagana dhaawiciiso oo fudud loo qaaday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari si loogu dabiibo dagaalka Puntland saaki waxay ku sheegtay inay dhul badan qabsatay kooxdana ay go'doon galisay toga Jacayl oo ah meel istiraatiiji ah kooxda ayuu dagaalku markaasi ilaa saaki uu ka soconayaa ilaa maanta ilaa caawo maalmaha soo socda oo ay bari ugu horeyso dagaalku si xoogaysan doona sida ay xuquuq tilmaamayaan dhinaca kalena Daacish ayaa waxay isticmaalaysaa inay miilooyin badan ay jidka geliso kuwaas oo ay ku doonaysaa in dawladdu ay markaasi ciidamadeedu ay soo gali waayaan ama ay kaga mashquulaan ama ay markaasi howlo kale ka leedahay laakiin waxa la soo warinaya in jid walba ay ciidamadu mar lahaaya ay kooxdu ay ka wado ama ay gelisay miina baaris ilaa halka ay ku sugan yihiin ilaa halka ciidamadu ku sugan yihiin iyo halka ay ku sugan yihiin inta u dhaxaysay bay geliyeen laakiin ciidanku waxay isticmaalayaan istiraatiijiyad ay ku doonayaan in ay miino baaris weyn oo ku sameeyaan oo tilaabo walba la qaadayo la socda dhibaatada ka dhalan karta wararka kale waxa ka mid ah aan idin hayno wararka ka imaanaya gobolka Gada waxay sheegayaan in maanta isbedel lama filaana uu ka dhacay gobolkaasi kadib markii ciidamada Jubbaland ay dib u loo wareegeen gacan ku hayntii xaruntii degmada Baardheere isbedelka ayaa yimid kadib markii xalay ciidamadu ay horey u joogay ee gudaha degmadaasi ee taabacsanaa dawladda federaalka ee ka bixeen Baardheere waxaana saaki gudaha u galay daraawiishta Jubbaland oo si buuxda hadda u maamulaya xarunta degmada Baardheere wararku waxay intaas ku sii darayaan in arrintaani ay timid kadib laba markaasi furfuris lagu sameeyay ciidamadii halkaasi ku sugnaa ee taabacsanaa dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa xarunta Baardheere tagay gudoomiyihii degmadaasi ee Jubbaland Aadan Maxamuud Axmed isaga oo horumar ka sameeyay Baardheere kaas oo lagu qiimeynayo xaaladda guud iyo arrimaha ammaanka ee degmadaasi ayuu indhayn ku bilaabay gudoomiyaha ayaa sidoo kale la xusay in haatan wixii ka dambeeyo uu markaas gudan doono waajibaadkiisa shaqo dhanka kale ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya iyo saraakiisheeda Baardheere oo dawladda federaalka ciidamadeedu ay haysteen iminka Jubbaland ba haysata waad mahadsantihiin akhyaaray wararka kale ee dhinaca caalamka ee maantay haddii mid iyo labo aan eego kuwa ugu waaweyn ama wararka ugu waaweyn ee dhanka caalamka Shiinaha ayaa canshuur argudasho ah waxa uu ku soo rogay dalka Mareykanka arrintaas oo ku noqonaysa markaasi qaniya ka fujisa Shiinaha ayaa talaadada maanta shaaciyay in canshuur boqolkiiba 15 uu ku soo rogi doono dhuxusha iyo gaaska dabiiciga ah ee dareeraha iyo sidoo kale waa gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah ee markaasi uu kala soo dago dalka Mareykanka kadib Washington oo Mareykanku markuu canshuur boqolkiiba 10 ah oo dheeraada ay saartay badeecooyinka Shiinaha laga soo dhoofiyo
wasaaradda maaliyadda ee waddanka Shiinaha sidoo kale waxay shaaca ka qaaday in boqolkiiba 10 canshuur ah ay dul dhigi doonto shidaalka cayriin iyo sidoo kale mashiinada beeraha, baabuurta xamuulka iyo sidoo kale gawaarida waaweyn sida kuwa isboortiga ee uu dalkaasi Shiinuhu ka soo gato ama ka soo iibsado waddanka Mareykanka. canshuuraha cusub ayaa jawaab u ah tilaabada canshuur kordhinta ee dhinaca kale ee Mareykanku uu qaaday dhamaadkii toddobaadkii hore uu saaray waddankaasi Shiinaha. tilaabadan ayaa waxay noqonaysaa markaasi mid uu doonayo inuu isaga fujiyo go'aanada Mareykanka ee aadka u qaraar. Trump ayaa waxa uu sheegay in tilaabooyinkan ay yihiin kuwo looga dan leeyahay in lagu ciqaabo dalalka ku guuldaraystay inay joojiyaan qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ah iyo daroogada ay ka midka tahay markaasi kuwa halista ee soo galaya gudaha waddanka Mareykanka. Yurub, Shiinaha iyo dalalka Asia iyo dalalka kale ee Amerika oo ay Mexico iyo Canada ay ka mid yihiin ayuu Mareykanku la beer tilmaameedsaday canshuuro xad dhaaf ah, laakiin dalalka qaybtood ayaaba durba garafka ku dhuftay oo diiday halka kuwa kalena ay hawraarsan dheheen go'aamada Trump. waa maasantiin muuqaalkan la gareeyo channelkeena subscribe saara haddii aad muuqaaladeena iyo warbixinadeena aad ka heshaana lagu soo biira.